dowladda dalkaasi fasaashay dhigeeda Colombia in ay wado shirqoolo afkambi oo ay alaaba la daba socoto xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Nicolas Maduro tan iyo markii uu dhacay qalalaasaha wadankaasi oo ay iska soo horjeedeen madaxweyne Nicolas Maduro iyo madaxweynaha isagu markaasi Mastafiriska ku maqan ayaa xaaladda waxa xumaatay xiriir ee u dhaxaysa labada wadan ee Colombia iyo Venezuela. wasiirka amuraha gudaha ee dalkaasi Venezuela Masai Luguro ayaa sheegay in ay maleeshiyaad ka soo jeeda dhankaasi in Colombia ay isku dayayaan inay afgambiyaan dowladda uu madaxda ka yahay Nicolas Maduro. gaar ahaan waxa uu sheegay in magaalada dekadale ee la yiraahdo Kumbeso ay dadkaasi ku soo qaadeen weerar Malaysia. jabhadan ayuu ku tilmaamay ama maleeshiyaadka inay taageerayso dowladda Colombia balse dowladda Colombia ayaa gabi ahaanba gaashaanka ku dhufatay isla markaana sheegtay inay tani tahay aanay waxba ka jirin. madaxweynaha Mastafiriska ku maqan ee dalka Venezuela oo ay aqoonsadeen 50 wadan oo ku yaala qaaradda Latin America iyo qaybo ka tirsan Yurub ayaa ilaa imika dibadmeera alaaba dowladda madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela ayaa ah dowlad Mareykanka ay ka dhaxayaan cadowtinimo iyo colaad aad u weyn isla markaana ku eedeysa wadamada ugu horeeya Mareykanku inay shirqool ka dhana wadaan alaaba oo ay ku mashquulsan yihiin sidii uga horkeen lahayn dadkeeda. dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Venezuela ayaa isagu go'aansaday marnaba inaanu u soo dibcin ama u jixin dalabaadka Mareykanka oo ah inuu baneeyo kursiga isla markaana uu wax ka bedelo xiriirka uu imika la leeyahay dalalka waqooyiga Amerika. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa madaxweyne garab iyo gaashaanba ka hela dalweynaha Russia kuwaasi oo la dhinac taagan hubka iyo dhaqaalaha adag oo noqday mid ay cidina ku soo dhici weyday isla markaana uu madaxweynihii ka soo horjeeday ee dabada ka riixayeen wadamada reer galbeedka uu noqday mid meel u socon waayay. dadka ku dhaqan wadanka Venezuela oo isagu wadan isagu markaasi qaniya ayaa aad uga guurayay bariyihii dambe si ay nolol tan dhaantay uga raadsadeen wadamada dariska. tan ayaa ah mid ay boonbooninayaan wadamada reer galbeedka oo ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Nicolas Maduro. suxufi Signore wararka shabakada caalamiga ee Odweyne Hargeysa.